السلام عليكم. هذا وسيحاني ما فهمتي واحد عاوزي كبر كوسر بلاك لدهو ان فيديو اي leedahay because raggan Soomaalidu way badan yihiin ma fahanteen raggan Soomaalidu markay badan yihiin please gabadha hala caawiyo nin looma waayin guursadaa ma fahanteen waa gabar Soomaaliyeed waa gabar sharaf leh haddii ay tiraahday nin ayaan rabaa way fiican tahay naaga badan oo beach oo meelaha iska wareegaya way dhaantaa marka please waa gabar 3 ciyaal ayay leedahay nin baa soo xumeeyay ma xataa waxa ku leeyahay nin haloo raadiyo gabadha marka aniga hadda ma garanayo niyadeeda say tahay because waa isku dhex buuqay ma garanayo please hala caawiyo gabadha wax kale aan dhahayo ma jirto wax kale uma soo gelin live-ka waa sii seexanaya hadda waxa ii tahay 8 saac iyo meelahaas bay ii tahay ma fahanteen marka ilaah baan iigu dhaarshay nin iskama idin waayin Soomaaliyay nin ma idin waayin marka nin haloo raadiyo gabadhaas ninba u baahan tahay gabadha meel joogto ma garanayo maybe inay joogto Kenya ma ka tahay meesha joogto kusir black baa dhahaa hadba live female ka soo gashaa please hala caawiyo abay macaan fideogayga haddii aad daawatid na ugu work support gareynina insha Allah walaash macaan adresskaaga iyo facebookkaaga saxda ah soo raadinaya anagoo isku dayay walaashay macayna wax ku qabto laakiin anagu gabdhaanahay waa ka naxayna waxaan ku oran lahaa yani wax hadii ku dhibayaan waxa calooshaada lagu heystaa ma fahantay aba anagu wayna dhibaysaa inaad soo ooydid oo soo calaacashid because gabdho walaalaha ayaan nahay because gabdho dhiigaaga ayaan nahay ma fahantay wallahi bilaa talay waxba akhrisanay markaas aan sii seexanay ayaaba Facebook galay markaas waxa ku arkay ma fahantay marka page kan ayaa live ka soo galay ma fahantay because waa kaasa waxaan ku sheegayaa abo anigu waxa la caawiyo ma rabo ma fahantay anu nin uma baahni ma fahantay imkan guur diyaar ma ii ma fahantay maanta guur diyaar noqdona ilaah baa jooga ma fahantay gabar yar baan ay dhamankaas leeyahay nin ma waaye ma fahantay laakiin oo waxa sheegaya gabadha yarta gabadha 3 ilmood haysata gabadha Kowsar la dhaw gabadha calaacalis gabadhaas oohinteeduna dhibtay abaa iska dhaaf oohinta anu waxa ku oran lahaa nin waa helaysaa maanta nin waxa ugu ooysid baa garanay nin muxuu kala maqan yahay walaashay 3 ilmood baa haysata 3 ilmood ma korsan weyday u shaqayso haddii xataa aqoon aadan lahayn xataa abay macaan dhidkaaga xataa waxa noqon kartaa kibar waa noqon kartaa kuwa guryaha ka shaqeeya ma fahantay abay wax kasta ilmahaaga u sameyn lahayd anu waxa ku oran lahaa nin baa guursan because ilmahaaga waxay arkayaan silac haddii aan nin guursatid oo ilmahaaga ninkaas uu karahsanayaa intay rulaad ku dhufanaya intay rto dhaay iga bax intay rto ma malaysanaysa ma fahantay adiga cuqudad ba markaa ku dilaysaa ma fahantay marka nilaan waa noolaan karaa because imika waa noolahay ma fahantay aniga kula hadlay alxamdulillah xiriir ma lihi wax anin ashkaansada ma jirto iminkana uma soo jeedo because horey waa usoo shakaansaday niman waxa ogaaday xiriiradii hore iga tagay inaysan waxba ku fadhin because maanta guur u baahday alxamdulillah ilaah baa jooga ma fahantay ilaah baa nahaya guurka inta kale waqtiga kuma luminayo in waxa bartaa in nolosheeda ada عليه حاسل nolosheeda un baa jecelahay nolosheeda ayaa waqti siiya nolosheeda ayaa maamula ma fahantay marka ma sheegin haddii nin iska hadlo contact la sameeyo oo iska salaamo haddii taas xiriir tahay laakiin xiriirkii la dhigi jira xabiibi qalbi baby ma hurdaa ma jiibsatay ma guriga tacaaw ma jirto ma igu jirto insha Allah imkan kuma jiro sanado dhowna kuma jiro
marka qalbiye waxa ku leeyahay anigu wallaahi abaay wallaahi abaay wallaahi abaay maskaxda ay xanuuntee fideogaaga arkay oo hinta kaa dhacaysa abaay iska dhaaf gabaraa tahay ilmaha haysataa nin wuxuu yaa soo aragtay saddex ayaa weliba soo aragtay ma fahanti saddex nin ay ku dhahday fideoga dhexdiisa waa isoo fureen saddex ilmood oo kale aabba ayaa haysataa marka waxa kuu dhiman aa raadinaysin maxay tahay anu waxa ku dhihi lahaa caqli isku samee qol xiro haddii aadan qol xirashadiis u kugu imaanayn jas xataa suulo ku fariiso buug soo qaado laba ku sideed toban kala maraya buug soo qaado wax walba qor ma fahante marka wax walba ku hagaagayaan fahante marka dadkan hitriska ma garanay waxa ku sheekeeyo qabiiladana ka hadlaya laakiin anigu jas waxa kuu sheegayaa gabadhaas ayaan leefka usoo galay waa mahadsantii dadka daawanaya waa mahadsantii ay dhegaysanaysaan qaarka maasajada cayda soo qorayana waxba iga muqsayaan laakiin anigu waxa kuu sheegaya abaay qurxee please ha ooyin abaay please ha ooyin gabdho waxaan arkaya commentiga dhexdiisa kaa soo caayaya gabdhahan commentiga dhexdiisa gabadha ka caayaya ma dhilaysanayso waxa ma samaynayso ma qaawanaa jas waxay ka hadashay niyadeeda wixii ku jiray markay niyadeeda niila wadaagtay wixii ku jiray inaasa ku dhahdaan ma aha ma fahante marka abooyaal wiilal Soomaaliya ayaa tihiin abooyaal caawiya maantani lagama waayin xataa waxaa la helayaa nin shiiqa waxay tiraahday xataa kelmadda itiri waan ka siinaxay waxay tiraahday haddii xataa meelaha guurdoonka marmarba waxay qabatay bay tiri meelaha guurdoonka inaan tago oo nin indhala ka fiirsado nin lugla ka fiirsado markale waxay tiraahday inaan minkayga gato markale waxay tiri inaan kelidayda gato waay waxaas dhan aw koskraynaysa waxaasoo dhan maxaa kuu kalifay waa nin la-aan please and please wiilal Soomaaliya waxa laga yaabaa 86 ay daawanaysa iminka waxa ku jira 2 daqiiqo inay yihiin wada wiilal marka walaal macaan gabadha caawiya walaal caawiya saddex ilmood bay haystaan ninba u baahantaa ma u baahna khaniisnimo ma u baahna dhilanimo ma u baahna inay tumato jas waxay u baahan tahay nin xalaala waxay tiraahday nimanka markaan u sheegto danteyda oo dhaho walaa anu wax yaran kuu sheegaa walaa koosra wax yaran kuu sheegaa nin maalintii aad u sheegatay dantaada maalintaas kuugu dambaysaa ma fahantay iyo nin maalinta ku dhahday waa ku jecel yahay maalintaas ayaa kuugu dambaysa anigu waxa ku dhihi lahaa fikrad ahaanteyda amaal ahaanteyda fikrad ahaanteyda waxa kula wadaagi lahaa يعني just حتى أقون حتى هذا لين أقون بس كده حتى هذا graduation شقكو هيلي كرين وحسميسا just شقيسو كأنت هذا كو شقيسو أما شغالة نقو أما بنان حاق أما قدار قد أما وح سماء أوكي وح خنيسني ما إهين هسم وح خنيسني ما إسك إلالي أن وحسميسا وح ديد كاغا أكو شقيستي لين دنك تناسل والله maalinta fiidiyowga aragtid waxaan filayaa in qorin doono because gabar walaasha ayaan ahay waxba kaama xaqirayo insha Allah waxa kula soo sameynaya contact ma fahantay waxa ku xirnay page-kan ma fahantay marka page-kan dadka iskale message soo qor insha Allah anigana way soo ka sheegayaan insha Allah walaal anna waxaan ka caawin karo inkastoo aanan nin dhihi karin please guurso hal wiil baa ila dhashtay wiilkaasna wuu yaryahay waa ka xumahay hadduu weynaan lahaa xataa waa kuu toogi lahaa wallaahi believe me laakiin hal wiil oo iga yaraa ila dhashtay ma fahantay aabe hal wiil uu dhalay ma fahantay abaay macaan calooshahan xumeyn kale is adkee 100% walaal please is adkee wax badan is adkee ma fahantay waa ogay dadkan anigu waxba ka sheekeenin oo gabar waxeeda ka hadlaaya arrimaheeda isoo caynooya
wis khaliifa wuxuu yidhi anaa guursanaya wala aniga hay sheegin haddaa guursanaysid kosar black waa taqaanaa ninkii dar ilaahay u guursanaya ninkii dar ilaahay u caawinaya gabadhaas maskiinta ah ee danteeda ka hadashay waxaa laga yaabaa ninkii gabadhaa guursadaa inuu ilaahay uga dhigo farash khayr qabaa because waa gabadh ilaahay bariday waa gabar dadkeeda la wadaagtay adduunka soomaalidan waa jaahiliin adduunka ma garanaysa soomaalida tan farxadooda ma fiiriyaan ma fahantay waxay fiiriyaan qof kale farxadiis ma fahantay adiga gabadhaas waxay samaynaysaa fiidiyoyada waxay usoo duubaysaa leefka waxay usoo galaysaa farxadeeda ayaa ku xiran hooyadeed farxadeeda faamiligeeda farxadeeda ma fiirinayso because markeeda hore faamiligeedu farxad ma aysan siin ma fahantay haddii faamiligaagu farxad ay ku siiyaan yani waxyaabahaas kumaad dhaqanteen ما فهمتي wiil baa halka wuxuu soo qorayaa sheeko marka ma fiirinayo wixii negative ma fiirinayo haters people kama helo ma fahanti xataa inaan isku sii mashquuliyo ma fiicna marka waxaan u sheegayaa walaashay qaaliye horta salaada badso walaashay qaaliye quraanka akhriso walaashay qaaliye markasta ilaahay ku xirnow ما فهمتي حتى اسكتشر او هنتن اويسيد اسكتشر دادك وعدو قاقا دادك سومالي ويهن لكن سومالي وحاسد وحكوحن مجتو إلهو يا اوقادا ناك اتشاني بهدي مانتا ساس اسو على هذا دي لهدين ايان ربا ساس اقدوري لهايين واي بهورتو ويلاشد السوماليات بلا دقن ويان واي بك بلا سومالي دو unacaan ee naaga ajaanib uftada ugu ruxaan uftada ugu leefaan way tasan garan waaye tas maxay tahayna ya gabar walaashina cala calaysa gabar walaashina ooysa mid guursada ma laga waaye sheekhadan xunxunko iska hadlaya oo dadka iska soo cacaynaya ayagu ma guursan waayeen sheekhada maxaa ka siiya ya nimanka naagaha cadaanka uftada u leefaya Soomaaliya waa ognahay nimanka cadaanka uftada u leefaya hadaday naag cad hadii la arko nin Soomaaliya iyo gabar Soomaaliya ilaa baan ku dhaartay respect boqolkiiba boqol wuxuu siinayaa naagta cadaanka ah war naagta cadaanka kabeeda kaama taqaan inteeba aqaana niman Soomaaliyo naaga cadaana qabo la gumaysto ilmaha la dhaho haya inaagu soo tumanayaan nimanka la raacayaan haye maxaa because gabartan Soomaaliyeed hadii aad guursatid nin kale kaama raacayso kuma dhahayso ilmaha hay suuqanaadaya waa soo tumanaya because din bay haysataa waxaan taqaanaa hadii la isku guursado in nin la guurso ninna lagu ekaado ma taqaan luuqiyo iyo niman kale because ana waxaan ka hadlayaa runta ka hadlayaa ma fahanteen ma fahantay marka gabadhaas ilmaha haysata ee dumarka ah ee single motherka ah ee soo cabatay oo soo tiraahday nin ayaa rabaa waa in nin loo raadiyo muhiimadda koowaad aan ka hadlayo waa taas ma fahantay muhiimadda koowaad aan u soo galay waa taas waxa kale aan u soo galay life kuma jirto xilligaa oo seexanayay ma fahantay anoo seexanayay ayaan arkay makeup xataa ima marsana ما أكتين ما يكب حتى إيمان مرسنا داد بسو قرأي ناكتو أفوينا هاي وسوينا هاي وفتوينا هاي وملكس تووينا هاي ومسكوك الصونا هاي because نولش كذا ناس كالي حالي بجمعين فانتم مركا كسو مشغول مركا وحكا لو نيشيغا marka waxaan ii sheegayaa gabadhaas Kenya ayay joogtaa sida aan ku maqlay warkeeda gaar ahaan Nairobi sida aan ku maqlay Facebook ay leedahay ma garanayo hadba page bay ka soo gashaa maanta waxaan arkayay hadda caawa waxaan ka arkayay soo dhigay ma akhrisan marka waa qamad bay qabtaa weynaysa
aad ay xumaadeen because waxa kaloo ka sii daran cidna ma soo qabto dhegeysta anigu cidnana ma soo qabto cidnana uma sheekeeye dhegeysta waxa kaloo ka sii daran naagaha naagta soo caynaya ka daran naadinku ma qalbigaa laadihin maxaan iga siiya gabar maskiina oo aan wax khalada samaynayn maxaad ku caydeen naagi cayba iska barteen maxaan iga khaldan maxaad ku caydeen waxa laga yaabaa gabadhaas niyadeeda ka hadashay waxa laga yaabaa inay waxay yidin inay ku baxaya ayadu waa raadinaya anigu ayadu page sax ay leedahay ma garanayo because qof kasta anu contact iskalama samaynayo because waxay arkaysaa in live kan soo galay video kan soo duubay ayay arkaysaa Somali cafe soo galay Somali cafe marka soo galay halkaas page ka iskale ayaga soo gudbinaya ma fahanteen ma dadkan anigu waxba samaynayn isoo caynaya gabadhaas uma bajixinjixayaanba ma fahanteen marka anigu imika waa ka baxaya marka nisaamaya imkan baxaya marka waxaan leeyahay xaggan aan ka tagay cadaanka ilaahay u haysta naagaha cadaanka maaha naagaha cadaanka ilaahay maaha waa kuwa gumayso ka tago ilmaha asaya anagu nimo bala soo tumanayna marka iyo marka shaqada isku sheego shaydaaminta ah oo dadka iska socaya dadka iska soo habaara gabadha loo raadiyo nin guursada okay taas waa mid ta kale taladeeda qaadanaysa abaay qurux kowsar dheemanay hadda taladeeda qaadanaysid anu waxa ku dhigi lahaa nin iyo baabka iska xir saddex ilmood oo kala jaana haysataa inta nin iska xirtid because nin wuxuu ku soo kordhinaya jirto inuu ilmahaaga yaso inuu ilmahaaga dharbaax la dhaco inuu ilmahaaga nacalad baa kugu taal ku dhaho ma ahana wuxuu ku soo kordhinaya malaha shaqayso haddaadan xataa graduation ku helen shaqada qudaar kadkad dad u shaqee banaanada xaaq waxaa samaysid ma waayaysid noloshaada nolol maalmeedkaaga waa dibran kartaa haddii aad ku talagashid waa haddii aan naag mayl adag tahay laakiin haddii aad tahay gabadhan halka soo ooysa dee maxaa waxba kuma samayn kara anigu dadkan kuula hadlay shuyuukhda xuxunka ah yaa shuyuukhda xuxunka dad kusoo habsaama gabadha nin haloo raadiyo ma fahanteen markaa soo galnay walaa nadiir ma caraayo waa sii socday bikoos waa seexanaya because nimanka naagaha caayaya iyo nimanka naagaha wax ku sameynaya hooyadood naag bay ahayd walaashood naag way iyadoo naag bay ahayd habartood kootadood kulli naagay ahaayeen ma fahantee marka kuwa yaa walaa waa kad waxay ku leeyihin is-adkeyn ayaad u baahan tahay ma fahantee is-adkee wallahi ani taladeed waxa ku leeyahay wax walba derbiga wax aan khaniisnimo ahayn oo dhilanimo ahayn iska ilaali laakiin wax kasta oo dantaada ku jirto oo shaqo ah qabo walaashay qurxay nin totalba iska xir
because nin haddii aad raadisid wallaahi wabilah utale maalintaan dhahdid nin baa raadinaya waa wareerta adaa wareerayba nin walba uu kaa cararaya laakiin maanta meel iska fariisatid ya maanta meel iska fariisatid nin walba saa kusoo doonanaya nin walba saa udhaya quruxa I love you quruxa I need you faaday waraani marka gacanta si aan ugu hayo waa daalay dhinaca kale aan u wareejinayaa marka waxaan ii sheegayaa naandheera baa tahay ciyaalka runta walaal ciyaalkan kuma mashquulay ciyaalkan waxay doonaan soo dhahaan fahantee anu ciyaalkan caydooda waa soo bartay wax badan bay soo caayeen wax badan bay soo wareeriyeen ma fahantee because Facebook horta uma badni because Facebook calankiisa u dhacay iyaalada reerka shalay samaystay Facebook mar hore ayaa laga helbaxay ma fahantee Facebook mar hore ayaa ugu dambeysay warkiisa dadka indhaha iminka kusoo kala qaaday Facebook mihi Facebook waa haystaa just waxaas kaasa fiirsadaa wallahi waxa laga yaabaa bishiina hal mar soo galo ma fahantee because aalada kala ka badan oo la isticmaalo ma fahantee marka waxaan ii sheegayaa wala caadi waan anigu qof arrintiisan ka hadlahay ma fahantee may walaalo ani lama qabo iminka buug baa qabaa wallahi Somali is so funny aniga horta waxaa jira ana Facebook waa leeyahay Facebookgayga sawiraan aan leeyahay ma soo geliyo Facebookgayga waa off laakiin waxaa isticmaalaa Instagram waxaa isticmaalaa Muskil waxaa isticmaalaa Telegram Snapchat waxoogaa ma fahantee Muskil iyo waxa u badnaa Instagram ma fahantee marka dadka badanaa Instagramkayga ayaan baa umaleynaya ma fahantee laakiin waxaa jira Facebookyo badan oo feega oo magacay ku qoran yahay sawiraanteedana ku jiraan laakiin aan u maleeyay laakiin waa taageersanay wixii fan page oo aan leeyahay oo dhan because iyo wixii haters fan page-na ayaga laftikooda Telegram ma jiro miya Telegram ma jiro soo degso $2 only baa ka xigta $2 ma fahantay $2 baa ka xigta marka kuma soo qorin waxaan ka hadlayo laakiin waa caadi waa ka hadlayba waxa ka hadlayay marka ayaga wixii haterskaygaana waa taageersanay wixii fanskaygaana waa taageersanay labadaba isku taageersanay ma fahanteen aragtisna la fiito
Mm. We can anyway. الله يا معاني dad baa leefkaygu arka weligood malaa yaqaanayo weligood message iisoo qorino facebookayga hadda message ka soo qorqoraayo yaa war iska xishoodniyo war ma istaagay anuu lugana ma lihi ma fahantay dhabarna ma lihi futana ma lihi gaari baan ku socdaa ma fahantay okay may instagramkayga walaal meelahaas ku jiraan واسكه ليس انستغرامكيغا ما فهمتي لكن waxaan ii sheegayaa topiga ka hadlaya please and please أول عرب ولا وقت تاجر سنة يا labadaba waa ahay walaa marka waxaan ii sheegayaa anuu wasixanayaa snapchat iyo waxaan ii soo qoraaya malaha ma fahantin marka ina adeerayaal waxaan ii sheegayaa lagu iga jaban yahay laakiin waxaan ii sheegayaa in caadil iska dhigo oo maxaan dhahaa oo gabadha loo gurmado because wax kale niima haayo wax kale oo ni dhihi karo ma jirto ma fahantay marka imka Coaster Black waan ka baxayaa Coaster Black waxaan leeyahay waa inay soo raadisaa page kan aan ka soo galay Somali Coffee waa inay iga soo raadisaa wax walba wax aan sameeyo wax un baa kuu samaynayaa good night and sweet dreams love you too Alex and Chama. Okay, bye bye. Love you guys. Bye bye. waan soo laabtay ilaahu haddana una naga go-inde waan soo laabanay sidatiin Soomaali weynay yaa naya kulaha naya manaagtis baan ahay amoonina adiga qabtid waan hubaa anna waan ka helaa maxamed darmilay anyway dahaygu waa adeego arkaan odaygu maqlaan soo dhawaada السلام عليكم
hadda waa seexanaya ma fahantay waxa daawaday gabar Kowsar Black la dhaho video ay leedahay because raggan Soomaalidu way badan yihiin ma fahanteen raggan Soomaalida markay badan yihiin please gabadha la caawiyo nin looma waayin guursadaa ma fahanteen waa gabar Soomaaliyeed waa gabar sharaf leh haddii ay tiraahday nin ayaan rabaa way fiican tahay naaga badan oo beach oo meelaha iska wareegaya way dhaantaa marka please waa gabar 3 ciyaal ayay leedahay nin baa soo xumeeyay ma xataa waxa ku leeyahay nin haloo raadiyo gabadha marka aniga hadda ma garanayo niyadeedii tahay because waa isku dhex buuqay ma garanayo please hala caawiyo gabadha wax kale aan dhahayo ma jirto wax kale uma soo gelin live-ka waa sii seexanaya hadda waxa ii tahay 8 saac iyo meelahaas bay ii tahay ma fahanteen marka ilaah baan iigu dhaarshay nin iskama idin waayin Soomaaliyay nin ma idin waayin marka nin haloo raadiyo gabadhaas ninba u baahan tahay gabadha meel joogto ma garanayo maybe inay joogto Kenya ma kasay meesha joogto Kowsar Black baa dhahaa hadba live female ka soo gashaa please hala caawiyo abay macaan videogayga haddii aad daawatid na ugu work support gareynina insha Allah walaashi macaan adresskaaga iyo facebookkaaga saxda ah soo raadinaya ana waa isku dayay walaashi macaan wax ku qabto laakiin anagu gabdhaanahay waa ka naxeynaa waxaan ku oran lahaa yani wax hadii ku dhibayaan waxa calooshaada lagu heystaa ma fahantay aba anagu wayna dhibaysaa inaad soo oydid oo soo calaacashid because gabdho walaalaha ayaan nahay because gabdho dhiigaaga ayaan nahay ma fahantay wallahi bilaa talay waxba akhrisanay markaas aan si seexanay ayaaba Facebook galay markaas waxa ku arkay ma fahantay marka page kan ayaa live ka soo galay ma fahantay because waa kaasa waxaan kuu sheegayaa abo anigu waxa la caawiyo ma rabo ma fahantay anu nin uma baahni ma fahantay imkana guur diyaar ma fahantay maanta guur diyaar noqdona ilaah baa jooga ma fahantay gabar yar baan dhamankaas leeyahay